kulan wacan wanaagsan idilhaantiin ba meel walba joogtaan iyo si walba maqalkeeni muuqaalkeena biniiso gaadhay ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamida dagaaladii ka socday dalka Ethiopia oo haatan la sheegayo inay galeen meel aad u xun kadib markii dagaalo waaweyn ay ka qarxeen deegaanka Oromia ayaa haatan ciidamada dawladda federaalka Ethiopia waxa ay sheegayaan in ay ayagu ku gacan sareeyeen dagaaladii ugu dambeeyay ee dhaco 24 saac ee la soo dhaafay ciidamadii liyuga sida gaarka u tababarnaa lagu daadinayay deegaanka Oromia ayaa ayagana sheegay inay guulo ka gaareen ayagoo haatan xaqiijiyay inay soo celiyeen gawaaridii laga dhacay iyo sidoo kale hantidii ay ururka OL ay sheeganayeen inay gebi ahaanba kala wareegeen ciidamada deegaanka Soomaalida dabley hubaysan ayaa xalay soo gashay deegaanka Soomaalida waxaana la sheegay in ay dileen in ka badan 6 qof halka ciidamada dawladda deegaanka Soomaalidu ay sheegeen inay dableydaasi gebi ahaanba ay ku raad joogaan waxaana ay xaqiijiyeen inay dableydu ka soo gudubtay dhinaca dalka Soomaaliya waxayna ciidamada sida gaarka u tababaran liyuga ay xaqiijiyeen inay ku raad joogaan ayna soo qaban doonaan dableydaasi cidda ka dambeysay daawadayaal qodobadaasi oo faahfaahsan ayaan warkeena caawa ku eegi doonaa haddii eeba idmo balse hadday tahay markaad kuugu horeysay ee barteena YouTube-ka soo boqoto sii share garee oo channelka subscribe noo saar barnaamijka waxa ugu heliyo saaxiibkay Santaag oo isha ku hayay wararkaasi oo idil waxaana ku horeynaynaa deegaanka Soomaalida maxay tahay falalkan maalmihii ugu dambeysay ku soo laabanayo inay xilligan ay dabley intay soo gasho dadka iska layso iyo sidoo kale maxay tahay habacsanaanta amni ee ka jirto deegaanka Soomaalida Santaag aad iyo aad baad u mahadsantahay ummadda Soomaaliyeedna waan salaamaynaa meel walba ay joogaan barnaamijka hadaan u guda galno dableyda hubaysan ee soo gashay waxaan dhihi karnaa habacsanaan abni ma dhicin oo waxa weeye rag qorshaysan ama weerar qorshaysan ayuu ahaa oo la og yahay inay soo galaan sababtoo ah ciidanka liyu booliska markii hore ay joogayeen oo wadanku uu ka darnaa oo xuduudaha ay ka darnaayeen oo liyu boolisku ay waxaan ka wadaa shabaabku ay xuduudaha taagan yihiin oo dawladda Soomaaliya ciidamadoodu xataa aysan meesha joogin oo gobolkan xuduud aan leenahay naftigiisa Puntland ciidamadiisu ay week yihiin ayaan weligood xuduudda intay dabley ama rag qori wata intuu soo talaabo aysan qajaf ka siinin deegaanka Soomaalida marka waxa la dhihi karaa tani waxay ahayd tusaale ciidamada iyo isloog yihiin dableydan soo gudubtay oo sabab oo ah mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda deegaanka Soomaalida oo dayacday mas'uuliyadii iyagu ay ku lahaayeen dhinaca ciidamada iyo ilaalinta amniga sababtoo ah mas'uuliyiinta ugu sareyso waxay dayaceen ama ay hoos u dhigeen dhiirigelinta ciidamada iyo garab istaaga ciidamada taasi oo ah laf dhabarta amniga ee bulshada Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida Santaag ka dhaxgale dawladda deegaanka Soomaalida markasta oo dagaal ka dhaco dalka Ethiopia waxay kula ordaan ama ay noqdaan ciidamada ugu horeeyay ee la geeyo goobtaasi dagaalku ka dhacay waxaan ogeyn falalkan hadda dhacay ee hadda dawladda deegaanka dhacay ma ahaane waxa jira iyagana falal ka xun oo dad aad u tira badan oo Soomaaliyeed oo deegaanka Soomaalida u dhashay oo lagu laayay galbeedka gobolka City dawladuna wax tilaaba oo ay ka bixisay ma jirin ciidamada liyuga ma maxal rabaan in lagu difaaco ahmaarada iyo oromada halkii laga difaaci lahaa deegaanka Soomaalida hortadii ciidan la diro dhib ma laha oo istiraatiiji saxan oo ciidamada iyo mas'uuliyiintu ay dajiyaan oo ciidan markaa ku filan xuduudda looga tago wax dhiba ma laha in ninka adiga aad taageersan tahay aad ciidan u dirto balse haddii aadan istiraatiijina lahayn ciidamadaaduna aysan ku filayn xuduudda dhiirigelin iyo moraal la aysan haysanin oo inta xuduudda joogto aadan garab istaagin oo moraalkooda sixin oo waxa weeye wuxuu u baahanaa baahiyaadkiisii aadan kafaalo qaadin oodan garab taagnayn waxba sheegi maysa ciidan badan oo meesha aad kaga tagtay oo xuduudda ka jira ayaga ayaa meeshimaya shacabka ayaga ayaa waxa weeye banaynahaya goobaha ay cadawgu ka soo gudbin karaan sababtoo ah askarigu walaal buu leeyahay hooyuu leeyahay ilmuu leeyahay dad buu leeyahay qoys buu ka soo tagay haddii isagii markuu farta u qaadan la yiraahdo maxkamad baad aadaysaa markuu farta qaadan loo isagana tiirka la istaajino waa la dilayaa qofka cadawga uu soo qaban lahayo qofka kalena uusan kara garanaynin oo wixii ay Soomaali yihiin waxa taasi marka ay sameeyaan ciidamadu aynay ayaguna nin walba naftiisa u ilaashado
oo halkiisi iyo godkiisa uu naftiisa ku ilaaliyo oo halkaasi uusan ka soo bixin marka waxa la dhihi karaa tani ma aha ciidamadu in iyagu ay dayaceen oo malihi ciidamada liyu booliska ayaa dayacay amnigii deegaanka dayacay malihi mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ee madaxweynuhu ka mid yahay ayaa dayacay oo u hanjabay ciidamadu in ay gacan la saari doono ciddii saafar u dhaqaajiso taasi ayaana ah waxaad leedahay ciidamadu amar uma haystaan inay la dagaalamaan argagixisada iyo sidoo kaleeto ururada ku soo duulay deegaanka Soomaalida ee dhibaatada ka geysanaya mar walba ciidanku wuxuu u baahan yahay haddii waxa dagaal gala la yiraahdo in motivation la siiyo oo la moral jabinin oo dhiirigelin la siiyo oo xagga dhaqaalaha laga dhiirigeliyo oo xagga codka laga dhiirigeliyo oo xagga waxqabadka laga dhiirigeliyo oo darajooyinka la bixinayo si siman oo cadaalad loo wada siiyo marka dawladani hadda waxa dhaliil weyn ay ku yeelatay in qaabkii xataa dalacsiinta aan loo cadaalad falin oo cadaalad aan laga samaynin qaabkii mishaaraadka laga samaynin qaabkii waxa weey waxqabadka aan laga samaynin oo cadaalad aan laga samaynin waxaad intaasi si dheer ciidamada intii halyeega ahayd ee xulka ahayd waxa iyagana loo qaaday furimaha hore dagaalka Axmaarada iyo Oromada taasi oo ah in ay ciidamadu haddana siinayaan ciidanku ninkan waa nin adoo kale taa waa nin madaxweynaha la mid ah waa nin wax bartay waa nin deegaankiisa jooga lama qumana inuu maarta ciidanka loo diro meel hebla baashi loo diro wadankiisa in loo diro ma la qumana taasi ayaa marka ciidamada ku kalifaysa in meelo badan ayuu ka imaanaya marka dawladdan totally waxa la dhihi karaa ilaahay un baa amni buuxa dawlad deegaanka iska siiyay mooyane madaxweyne Mustafa Cagjar wuu ku guuldareystay gabi ahaanba aad baad mahadsantahay intaas aan ka tagno dawlad deegaanka Soomaalida ee ururka OLA waxa ay sheegeen inay qabsadeen deegaamo aad u tiro badan halka dawladda federaalka Itoobiya iyaduna maanta ay soo saartay war ku saabsan in ay gabi ahaanba cagta marisay fariisimiye ay lahayn ururka OLA bal sheegashadan labada dhinac maxaan ku qiyaasi karaa iyadoo ognahay markasta in ururka OLA iyagu ay dhankooda guul u sheegtaan waligood guul darro aysan xaqiijin horta mid way jirtaa gurigaada ninku ugu la dagaalaadun ba karayn sababtoo ah gurigaada meeshii mididu taala adiga og meeshii baangada kugu xariisnayd adiga og meeshii igrideed ka bixi lahayd ee haddii xataa culays ku soo waxay adigu baa garanaya marka dagaal hal mar oo dhacay waa laga yaabaa ciidamada liyu boolisku waa ciidamo hawlkar ah dagaalada ku fiican dawladda Itoobiya oo dhan baa qirtay caalamka ayaa qiray waa raggeesiina weeye oo taasi la isma diidana hase ahaatee OLA waa urur baaxad weyn waxa la dhihi karaa ciidamadooda iyo dawlad deegaanka Soomaalida dhan baa isleegba aad bay nooga badan yihiin shacabkooda ayaa taageersan 95% shacabku way taageersan yihiin marka sheegashada dawladdu waxa la dhihi karaa waa xeelad military maadaama halkaasi aysan tagi karin warbaahinta madaxa banaan oo hadda warbaahin soo tabinayso sax aysan jirin labada dhinac waxay soo sheegtaan bay warbaahintu hadda qaadataa marka waa jiid aan ku jiida adigana jiid markaad jiido si jiid weeye marka shalay waxa sheeganaysa OLA oo lahayd gawaari baan soo qabsaday kan baan qabsaday hubwa weyn baan qabsaday ciidamada liyu booliska jabban u geystay kan baan u geystay maantana ciidamada liyu booliska waxay sheegeen inay gawaaridii dib u soo qabsadeen alaabtii dib u soo qabsadeen wixii dib u qabsadeen saldhigyo waaweyn cagtaan marinay kan baan marinay marka waxa la dhihi karaa marka waa xeelad military iyo maaragtay luuqadda militariga iyo maaragtay ciidanku uu ku wada hadlaa taasiba ah markii lagu jabiyana inaad qirato federaalka Itoobiya ayaa sheegtay in ay haatan gaarsiisay gargaar aad u tiro badan deegaanka Tigreega oo noqon in ay xayiraad dhinaca gargaarka ay saareen dawladdu waxay xaqiijisay sidoo kale inay geysay halkaasi in ka badan 47 gawaarida xamuulka qaada ee samtreelayaasha ah oo raashin iyo agabyo kala duwan ay saaran yihiin gargaarkani ma laga yaabaa inuu qaboojiyo dagaalka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo ururka TPLF maya elho u baahan horta hadal ma bogsiyo Tigray waxay rabaan in kursiga ra'iisul wasaaraha ee dalka Itoobiya gacantooda loo geliyo wax kale oo ay ku qanci karaan male sababtoo ah Tigray oo dhisan maamulkoodu dhisan yahay dawladoodu dhisan tahay dhulkoodu dhisan yahay magaaladu ay dhalad tahay ayay dagaal iyo xabad ayay ka doorbideen in ay kursiga waxa weey ra'iisul wasaaraha deysay heleen marka lama dhigi karo taasi qabow ayay keenaysaa Tigray meel bay uga go'an tahay go'aan ayay leeyihiin balse dadka lagu duulahayo ee dawladii maataba sidii naag garoob ah ninkii la rabaa uu dumaanayo waa dawlad deegaanka Soomaalida dawladdan hadda Soomaalida ka jirtay ee madaxweyne Mustafa Cagjar uu hogaaminayo mid ka nacsan waliga ma aragba aad iyo aad baad mahadsantahay dawadayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa war waxaan daliya dibadba idin keenay intaan warkan warka xiga aan ku kulmi doono waxay naga tagay sidaas iyo amaanaad